I'm losing my mind now. It's in my head, darling. I hope that you'll be. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا السلام أصحابتي جيبوا قالية meel waliba dunida dacaladeeda aad ka joogtiin waa markale iyo walaashin Shamhad Style janaalkeeda kala socoteen qaybta cuni kariska waa ku mahadsantiin sida wacan hadii la socotiin daawatiin muuqaalada walba aan soo geliyo iguna soo qortiin kommentiyada quruxda badan iyo ducada inta iskugu jiro aad iyo aad kaga mahadcelinaa asxaabteyda waxaan rajeynayaa inaad caafimaad qabtiin insha Allah maanta waxaan la share gareynaa keeg casriye ah laba nooc ahaan u sameeynaa keegan midna chocolate ka dhigaynaa midna keeg caadi aan ka sameeynaa insha Allah waxyaabaha keegan ka sameeynaa halkaan inoogu diyaarsan yihiin asxaabteyda 10 xabo ukun ah baking powder vanilla ana isticmaalana waa fresh milk koobkaas ba isticmaalana qiyaasta nagu filan koob saliid wax yar dhiman burkan waxa waay 2 koob waxaan ku soo cabirtay koobka sokorta igu jiro sokortan waxaan isticmaalayaa 2 koob ayaan gadaal uga soo darsanayaa 10 xabo ayaa halkan ku soo jabsaday labadii koob oo sokorteedna halkan aan ku soo shubay insha Allah stepkeena ugu horeeya ayaa hadda noo bilaabanayo asxaabteyda mishiinteen intaan inoo soo shiidaysa intee howlaha si qabsanaysan insha Allah anigana howsheeda kale ayaan sii galayaa asxaabteyda kaamiradan insha Allah idinka ma jaraayo sidaan ay hawsha noogu sii soconaysaa haddii Allah raxmaanka yiraahdo sidaan ay noogu sii soconaysaa insha Allah isla socod wanaagsan asxaabteyda igu qaaliga ah xoogaa mashiinta codkeedana waa in ka gaabinayaa si uusan dhawaqeeda saaidka inuu maqal insha Allah dib ayaan isku soo noqonay asxaabteyda qaaliga sokortii iyo ukuntii sidaan ayaa u soo qastay mashiinta ma sha Allah hadda waxaan ku daray waa saliid hadana waxaan ku darayaa koobkii caanaha intaan ayaa isku soo shiidaysaa insha Allah si fiican markay isku soo dhaxgasho ayaan stepka saddexaad u gudbaynaa insha Allah hadda stepka hore waa soo dhaafnay Soomahan stepka labaad hadda soconaa stepka saddexaad oo noo xigi doona insha Allah asxaabteyda nala socda ما شاء الله sidaan ay mashiinta ku soo qastay asxaabteeda hadda stepka saddexaad ayaan noo bilaabanayo waxaan ku darayaa waa baking powder
qaadada cuntada ayaan kusoo cabiray, qaadada labaad waa 2 qaado qiyaasteen insha Allah. waxaan kaloo ku darayaa vanilla 2 qaado ayaan ku daray asxaabteeda insha Allah. haddana dib ayaan soo shiidaysaa mashiinta, kadib ayaan isku soo laabaneynaa haddii Allah raxmaanka yiraahdo. soo wanaagsan. wow, sidaanay diyaar noogu tahay maasha Allah. hadda waxa aan ku darayaa burka ayaan ku darayaa 2 koob waa asxaabteeda sidaan hore kugu sheegay. falwiskan ayaan si fiican ugu soo qasayaa si kal iyo laab aan ku dhah, si uusan burada kaaga yeelan waa inaad si fiican u soo qastid. haddii aad mashiintan oo kale haysanin waxaa ku qasan kartaa makiinada juiska oo kale waa ku sameysan kartaa, intaas hataa oo kale waa ku sameysan kartaa. maasha Allah si fiican ayaan isku soo dhexgelinayaa marka aan soo qaso insha Allah. burkan waan kala jarayaa asxaabteeda, 2 keegan ka sameynaa soo imaan oran 2 keegan ka sameynayaa, kadib waan kala jarayaa burkan insha Allah. ila socda qaabka u sameynayo adinka arki doontiin maasha Allah. si kal iyo laabaan ku dhah inaba caadi ahayn oo joodin si mana adko biyo saaidna maaha, normal ayaan kasoo dhigay. sidaan ayuu diyaar ku yahay. hadda baaquliga ayaan soo qaadanaya insha Allah. waan kala jarayaa qaybtii ayaan waxaan kusoo shubtay weelkan aan kusoo shubtay maasha Allah. waxaan korka uga daray waa chocolate, qaybtan chocolate ayaan ku qasayaa asxaabteeda si fiican ila socda. qaybtan chocolate si fiican aan ugu qasayaa, waa wax yar aan macnaha aan chocolate ka dhaxda inaan ka gasho aan rabo. sidaan ayaan soo qasayaa asxaabteeda maasha Allah. chocolate yar ayaan gadaal uga soo daray, si fiican ayaan isku dhexgelinayaa. kadib ayaan waxaan soo qaadanayaa saxankii aan ku gelin lahaa ovenka. halkaan uu igu diyaarsan yahay asxaabteeda. markaan ku gelin lahaa ovenka waxaan brush la mariyay waa butter suusan nooga dhegin. kadib waxaan soo qaatay burkii asxaabteeda waan ku soo shubay. marka aan ku soo shubo ayaan waxaan gadaal oo kaga darayaa insha Allah chocolate-kii aan soo qasay. chocolate-kii aan soo qasay ayaan korka ugu shubay insha Allah. geesaha dhan ayaan uga shubayaa asxaabteeda. kadib ayaan waxaan soo qaadanayaa brushkii ayaan dhexda ka gelinayaa, dhexda ayaan kula labayaa asxaabteeda. sidaas ayaan isku dhex gelinayaa brushkan, sidaas ugu dhex geliyay oo joojin maasha Allah. kadib waxaan dusha uga sii shubayaa chocolate kale. keega waxaa waaye kii chocolate-ka waa asxaabteeda, midka kale wuu noo dhiman yahay asaga wuu noo sii diyaarsan yahay. ovenka la gelinayna insha Allah. brushka la dhexda kala marinaysaa, qaybna chocolate uu noqonayana qaybtaas maasha Allah. sidaas isku dhex gelinaysaa maasha Allah. ovenkeena hadda wuu noo sii shidan yahay asxaabteeda. wuxuu noo geysan 180 ayuu noo geysan yahay. hadda keegan soo gelinayna asxaabteeda wuxuu noogu jirayaa 30 daqiiqo insha Allah. 30 daqiiqo dambe keegan wuxuu noogu noqon doonaa diyaar ayuu noogu noqonayaa. hadda waxaan sii diyaarsanaynaa keega kaleeto oo midkii caadigaan sii diyaarsanay maasha Allah. kii hore waa noo soo karay, kii labaad ayaan gelinaynaa asxaabteeda. asagana wuxuu noogu jirayaa 30 daqiiqo. 30 daqiiqo kadib insha Allah diyaar ayuu noo noqonayaa.
maasha allah keegii chocolate-ka sidaan uu kusoo baxay asxaabteeda u joodeen maasha allah midkii caadiga ahana sidaan uu kusoo baxay inaba caadi ma ahan waa keeg soft ah oo aad u jilicsan waa asxaabteeda aad u jilicsan yahay maasha allah sidaan quruxda badan ay noogu soo kala baxeen labadii keeg aan ila soo share gareeyay asxaabteeda video hadii soo gaaro ha like iyo share iyo comment-iga intaba hanaga baqiilina please hadii aad ku cusub tahay channel-kayga subscribe my channel gambaleelkan on ka dhigo si uu ku soo gaaro next video